warbixintan waxaan ku eegi doonaa jacaylkii dhex maray lamaanihii guulaystay Tuuriya Bid iyo seegeeda Michael Hoskin. Sheekada lamaanahani waa mid dareen gaar ah xambaarsan. Markaad sheekada lamaanahan dhageysato, indhahaaga ilinta ayaa ka qoban doonta, waxaanad u riyaaqi doontaa jacaylka aan xuduud lahayn ee lamaanahan dhex maray. Balse intaana sheekada lamaanahan kula wadaagin, fadlan bogeyga Khalid Cali Ismaaciil like saar, sidoo kale muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibada. Mahadsanid. Michael iyo Tuuriya waxay jacayl ahaayeen tan iyo sanadkii 2009 waqtigaas oo isla dhiganayeen dugsiga sare, balse nasiib darro lamaanahan waxa soo wajahday dhibaato ay ku adkayd inay ka soo kabtaan kadib markii Tuuriya ay gashay shil. Dhammaan jirkeedana waxa qabsaday oo gubay dab. Tuuriya waa injineerad iyo orodyahanad hore, waxaana sidoo kale dadka yaqaan ay ku tilmaamaan inay tahay dhiirigeliye saameyn leh iyo qoraa. Tuuriya caruurnimadeedii waxa ay ku soo qaadatay magaalo yar oo ku taala Uladuula, waxaanay dhigatay dugsiga dadweynaha Uladuula High School. waxay sidoo kale caan ku ahayd awoodeeda ciyaaraha. 8 Maarch 2018 Tuuriya waxay gashay tartankii ugu horeeyay dhanka orodka iyada oo meel fiican kaga dhamaysatay. Michael oo ninka ay gabadhan u doolanayd marna kamuu tagin Tuuriya oo garabkeeda muu banayn, balse taas bedelkeeda shaqadiisa ayuu ka soo tagay. Suuxanaanaya Tuuriya oo gashay 200 qalliin oo jirkeeda lagu dabiibayo, caafimaadkeedana lagula tacaalayo. Michael si uu jacaylkiisa Tuuriya u ilaashado waxa uu xanaanaynayay muddo dhan 2 sano oo isbitaalka kula jiray. Michael oo ka hadlaya xaaladda soo wajahday gabadhu yaraantiisii jacaylka daran qaaday ayaa waxa uu yidhi, ma aanan jeclayn quruxdeeda, balse waxaan jeclaa qofnimadeeda. Sidaas ayaa uu Michael dareenkiisa ku cabiray mar warbaahintu wax ka weydiisay sababta uu ilaa maanta ula jooga Tuuriya. Ugu dambeyntii Michael iyo Tuuriya way isguursadeen, waxaana isku dhaleen 4 carruur ah. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto.